السلام عليكم soo dhawaada muuqaal cusub aan ku falaqeynayno heesta la magac baxday nabaray naxdin arinka la yiraahdo like ayaa liibsaday Falis Cabdi oo ah mucaaradka koowaad ee xisbiga nabad iyo nolol ayaa heesa talantaaliya ku soo garaacday heesahaas ayaa dhaliyay shacabkii inay ka soo horjeestaan Falis Cabdi oo ah way aragad dhanka fanka ku soo taageertay qarannimada Soomaaliya xili ay adkeed in fanaan uu ku heesaa gumeysiga Itoobiya nimagaarin baa jira aynu ka soo laabano kistaayar aan falaqeynteeni u soo laabano bahda waayaha cusub oo ahaa team muddo dheer soo jiray hadeertaan laakiin adduunku dhanku wada firdhoobay ayaa qaarkood ka soo horjeesteen heesta Falis Cabdi ee ku garaacayso nabad iyo nolol uu ka mid yahay dalmaryare iyo fanaaniin kalaba haddaba sidee bulshadu uga falceliyeen heestii koowaad ee nabar iyo naxdin u baxsheen waxa ay gaartay 800 iyo xoogaa kun oo views waxayna heshay wax 80,000 kor u dhaafayo tiro 80,000 kor u dhaafayso oo dislike haddaba dislike ma tahay mid la iibsan karo haddii la iibsanayana qaabkee loo maraa marka koowaad waxaan laga indhasaaba karin in dislike la iibsan karo sida ay sheegeenba waayaha cusub waa si saxan waxaana indhaha laga saaba karin ayaa ah in la iibsan karo dadka qaar ayaa ku doodaya hadiiba dislike iyo like la iibsan karo maxay dadku u dhahaan like iyo saara tusaale ahaan hadii kontakun ee like laga siinayo $1 muuqaalkaaga hadii ay daawatana 100,000 aad ku helayso $500 tusaale ahaan 100,000 markay ku daawato $500 hadaad ku helayso maxay ka faa'iideysaa in aad 50,000 oo like ay iibsato kaana baxdo $1 halkii aad ka helaysay $500 laba jibaar lacagtii ayaa ka baxday taasi waxaan tusaale ahaan ugu soo qaadanayaa dadka aqliga u saaxiibka ah ee fahmi karo xisaabta iyo sababta aysan dadka u iibsan like-ta haddaba haddii ay jirto arin xasaasiya ama ee dantu ay ka gasho hal muuqaal in aad dhulka geliso ama hal muuqaal inaad kor u qaado waad iibsan kartaa like iyo dislike ba haddii aan halkaas kaga baxno mawduuca ah like iyo dislike ma la iibsan karaa factorka labaad ama arinta labaad ee keentay in ay hesho muuqaalkaas dislike ugu badneed waxaan ku saadaalin karnaa in ay heesto ku jireen sida ay dadku sheegayaan eraya xun oo aanun istaahilin madaxda dalka waxaa jiro dad badan oo taageersan madaxda hadda dalka u talinaysa dadkii badnaa ee taageersanaa baa la dhihi karaa in ay ayaguna ay ka qayb qaateen dislike-taas faraha badan arinta saddexaad ee aan ku sababeyn karo in uu muuqaalkaasi yeeshay dislike-tii ugu badneed abid ee muuqaal Soomaaliya la saaro waxay noqon kartaa dadkeenu inay yihiin dadka Soomaaliyeed waxaa lagu yaqaanaa wax la yiraahdo qiiro Japan hadaad hore u maqashay waa aad maqashay haddii aadan maqlinna waxaa la yiraahdaa xamaasadda halka maalin labada maalin ama halka toddobaad ku dhamaato ayaa waxaa la yiraahdaa qiiro Japan haddaba dadka Soomaaliyeed halkii dadku ay u bataan waa dad raaca ama xamaasadda markaas taagan dad la jaan qaada haddaba markay arkaan dislike in lagu shubayo mahan ama meeshan waa dad ayaguna ku sii shubaya halkay ku socotaa lagu sii wadaa waa dad sida aaminsan haddaba si uusan nooga sii dheeraan muuqaalka waa inaan usoo gudubnaa heesta cusub ee waayaha cusub heesta cusub ayaa waxay ugu magac dareen doohanaha
heestan ayaad bamoodaa in si gooni ah loogu ataagayo ama lagu weerarayo madaxweynaha. sidii si la mid ah heestu waxay sii cagacagaynaysaa dislike tiro badan. waxay sii cagacagaynaysaa waqtigan 38,000 oo dislike halka ay ka haysato 12,000 oo like. xaaladdu waxay isku bedeli kartaa si kama kooban. waxaa laga yaabaa waqtigan haddii aad fiiriso in uu xaalku isku bedelay si kale, balse waqtigan aan muuqaalkani duubayno wuxuu marayaa nambarkaas aan idin kala sheegnay ee ah 38,000 oo dislike iyo 12,000 oo like. dislike-to fara badataa waxay keeni kartaa like-to oo fara badataa, sababtoo ah waxaa dhacayo isku sheeg fara badan. qof walba oo mucaarad lahne wuxuu leeyahay muxaafad tiro badan. haddaba si aan muuqaalka usoo koobno, waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo iyo is arag dambe. waayaha cusub oo usoo jeesta dhankay dadka u jeedaan. haddaba sidaa iyo nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.